hay-adda istatistikada qaran iyada oo gudanaysa waajibaadkeeda sharciga oo ay ka mid tahay inaan sare u qaadno aqoonta istatistikada bulshada dawladda iyo ardayda waxaan maanta daahfurnay ama soo sheeg bilownay waxbarashada aaladda fog istatistikada kaas oo ku dhisan manhaj loo diyaariyay istatistikada oo ay khubarada xafiiska hay-adda istatistikada qaran ay diyaariyeen kaasoo loogu talagalay marka ugu horeysa shaqaalaha dawladda oo ay kow ka tahay hay-adda istatistikada qaran khubarada hay-adda istatistikada qaran ama xirfadlayaasha iyo statisticska dadka ka shaqeeya dawladda ku fidsan hay-ad walba oo dawladda ka mid ah istatistikada waxay leedahay badankeed qayb u qaabilsan ama qayb la xiriirta istatistikada sidaas oo kale ardayda sidaas oo kale bulshada guud in aqoontooda kor loogu qaado ayaa loogu talagalay. hay-adda istatistikada qaranka ee dawladda u qaabilsan ururinta xogta falanqaynta iyo isku duwidda xogaha qaranka waliba gaar ahaan xogta rasmiga oo dawladda u qaabilsan waxaa farxad u ah maanta inay daahfurto barnaamijka SNBS e-learning platform oo ah barnaamij online ah oo cashiro istatistikada iskugu jirto fikradaha istatistikada guud iyo sidoo kale istatistikada kala duwan noocyaha kala duwan ha noqoto istatistikada arrimaha bulshada istatistikada dhaqaalaha istatistikada wax soo saarka iyo istatistikada la xiriirto cimilada dhammaan waa hay-adda istatistikada qaranka u qaabilsan dawladda dhammaan xog kasta oo ay dawladda baahiso iyo siday u soo saarto wax qaabka ay samayso. xafiiskan wuxuu leeyahay barnaamij online ah oo la diyaariyey iyo wuxuu lahaan doonaa YouTube channel la soo dhigi doono dhammaan kooraska duubi doono kooraska duubi doono waxay isugu jiraan statistical concepts oo from basic intermediate ilaa advanced tegi doono kadib waxaa ku xiga inaan ku apply gareyn doono hadduu ilaah yidhaahdo because statisticada badanaa waa application oo gasha dhowr takhasusay gasha marka inaan dadka barnaa statistica for economics sida econometricska waa inaan barnaa social si u shaqaynayso sida healthiga iyo educationka iyo wax la mid ah waxyaabaha ay naga caawinayso aaladdan ayaa waxaa ka mid ah in si sahlan aqoonta istatistikada kor loogu qaado si sahlan markaan dhaho waxaan ka wadaa xitaa qarash ahaan caadi ahaan waxaan samayn jirnay inaan workshops ama seminars aan ku gudbino ama sare ugu qaadno aqoonta workshopskaas waxaa ku baxa lacag badan baa ku baxa siyaabo badan oo maaragtay dad baa soo safra waxaasoo dhan ayay sahlaysaa in laga baxo waxayna noo sahlaysaa in khubaro badan aan ku helno oo manhajkan inoo dhiga wuuna socon doonaa ilaa laga dhammaystiro saddex qayboodna waa uu leeyahay qayb waxa weeye waa qaybta asaasiga ah ama foundationka qaybna waxa weeye waa qayb dhexdhexaada oo intermediate ah iyo qayb sare ama advanced level statistics loogu talagalay waxaan ku bogaadinayaa shaqaalaha dawladda statistikada la xiriira oo inay aqoontooda ku korsadaan sidoo kale ardayda jaamacadaha dhigta inay isticmaalaan iyo bulshada guud ahaan waxaan rabnaa sideeda waxaan rabnaa warbixinada aan soo saarno iyo xogta aan soo saarno in ay dadkoo dhan fahmi karaan isticmaali karaan marka dadkoo dhan bayba barnaamijkan uu waxtarayaa hay-adda istatistikada qaran ma aha hay-ad gaar loo leeyahay oo charge garaynaysa waxan marka waa hay-ad u samey dawlad ay leedahay oo waxbarashadan marka waa bilaash ama waxaana loogu talagalay inaan dadka ku gaarsiino sida ugu fudud aad iyo aad u mahadsantiin. waxaan ognahay hay-adda istatistikada qaranka laba shaqo ayay qabataa oo ah shaqada koobaad inay qabato tirokoobyada iyo sahanada oo standard ah iyo sidoo kale waxay isku duwdaa arrimaha xogta maamulka ama wax loo yaqaano administrative data marka waxaa barnaamijkan uu sahli doonaa dhammaan cid kasto ayada si free inay ku hesho qaab online ah ayadoo gurigeeda joogto ay hesho ay barato statistikada taas waxay fududeyn doontaa xitaa statistikada
aqoonta statistikada dadka Soomaaliyeed inay fahmaan statistikada guud iyo statistikada rasmiga oo dawladda ay qaabilsan tahay. waxaa kaloo halkan ka marneen inaan barno statistical packageska oo ayna muhiim ah in lagu apply gareeyo waxaan baranayno theory-ga iyo ayada application-a. waxaan rajaynayaa inuu noqon doono course aad iyo aad looga faa'iidi doono ilaa iraado qof kasta oo damac ku jiro bartan course-ka maxay uu baran doono. waana qaab online ah qof kasta loo fududeeyo asoo gurigiisa joogo baran karo dalka ha joogo dibadda ha joogo in aan ka qabtirno muhiimadda ay u leedahay course-kaas inuu qof kasta fahmi karo si maxay biri ka maalin oo qof yani wacyiga ama yani ka warqaba maxay waddanka horumar ku sameynayo haddii tahay maxay information waddanka ka socdo statistically iyo wax walba qofkaas caawin karo. saan ogsoonahay statistikada waa waxyaabaha qofka bini'aadamka u fududeeyo inuu sameeyo go'aankaasoo ka bilaaban doona from individual ilaa national ama nationwide qaran ahaan. insha allah koorsooyinkan bilaabi doono ayay ku jiraan statistically muhiimadda ay leedahay maxaan u baranaynaa muxuu yahay goorma isticmaalnaa iyo see u isticmaalna. insha allah waxaan rajaynaynaa inaad ka bogataan kooraskan oo muhiimka insha allah dhawaan furmi doono. waa mahadsantihiin soo dhawaada.